Xogta qarsoon ee qaar ka tirsan fanaaniinta aynu ku bilowno fanaanada caanka ah ee Nadiire Maxamed Cige Nadiire Naruus loo yaqaano. Nadiire Naruus oo fanka kusoo biirtay sanadkii 2015 ayaa isla bilowgii fanka waxay ku afbilaabatay oo ay guursatay fanaan kale oo lagu magacaabo Maxamuud Meegsheeno, kaasi oo iskoox ahaayeen. Nadiire iyo Meegsheeno ayaa isku dhalay laba wiil, inkastoo wiil uu ka dhintay sida xogta aan ku helay, waxayna ahaayeen dad iyagoo isqaba haddana isjecel, laakiin mar dambe ayay sirtu hoos ka qudhuntay kadib markii Nadiire Naruus ay la dagaashay saygeedii. Hadda waxay wada socdaan wiil horay DJ u ahaa oo magaalada Kampala ee wadanka Uganda ku noolaa, walow leeyahay hadda iskuma fiicna. Nadiire ayaa lagu taxantaa in wiilkaani ay hoosta ka maharsatay iyadoo marwada Meegsheeno ah kadib markii uu wiilkan ka dhaadhiciyay inuu qurbaha geynayo, dhowr marna u soo diray lacago badan oo xad dhaaf ah. Wiilkan kala geeyay Nadiire iyo xaajigeedii Meegsheeno ayaa la sheegay in Nadiire ay ka soo jiidatay qoobka ciyaarka iyo ruxidda naasaha marka ay heesayso oo ay maslaxa saaran tahay. Magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda ayay muddo toddobaad isla joogeen, kadibna Nadiire ayaa u hayaantay dhanka iyo Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Hargeysa oo ay hadda ku sugan tahay. Xogta qarsoon ee Wilwal Media ayaa heshay in Nadiire ay hadda wada socdaan ninkii saddexaad oo fanaan reer Hargeysa caan ah, laakiin fanaankaasi waxaad ku daawan doontaan barnaamijyada dambe ee soo socda islamarkaana aan ka baahin doono Wilwal Media.